محمد يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله محمد يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله واللي عجب معك. arrinka toddobaad ee cudurradan dawo ka noqda murugada warwarkiiyo walbahaarka waa asalaatu cala nabiyi calayhi salaatu wasalaam waa salliga nebiga lagu salliyo ee loogu duceeyo ilaahay inuu xagga sare ka ammaano taasoo raxmadiisuna ay ku jirto waa faa'iida casiiza oo dad badani ay moogan yihiin in salliga nebigu calayhi salaatu wasalaam uu cibaado yahay wax wanaagsan uu yahay xuquuqda nebiga uu ka mid yahay dad badani waa maqleenoo waa garanayaan laakiin salliga nebigu inuu min asbaab alfaraj ka mid yahay oo xataa hadduu xanuun ku hayo ood farabadiso ilaahay sabab uga dhigi karo inay caafimaad oo dawo uu ka yahay murugada warwarkiiyo walbahaarka dad badani lama socdaan fasmac hada alxadiid ubaya ibnu kacab wuxuu yidhi qultu ya rasuula allah inii uksiru asalaata calayka fakam ajcalu laka min salaatii rasuulka ilaahayow aad baan kuugu salliyaa oo ku salligaaga waan badiyaaye ducadayda intaan kaa siiya fakam ajcalu laka min salaati ay min ducaai bimacnaa markaan ilaahay baryayo baryadayda intee in leeg baan ka dhigaa salli nebi waan raaciyey qaala maa shita rasuulku wuxu uhi inta doonto qultu arubca ducadayda markaan 4 meelood u qaybiyo meel ma ka dhigaa salliga nebiga qaala maa shita fain zidta fahuwa khayrun laka intaa doonto ka dhig buu rasuulku wixii aad ziyaadisaana waa khayr aad kororsatay qultu annisfa kala badh ma ka dhigaa kala badh duco kala badhna salli nebi qaala nabiyu calayhi salaatu wasalaam maa shita fain zidta fahuwa khayrun laka intaa doonto ka dhig adaa ikhtiyaar kale laakiin wixii aad siyaadisaad kordhisaa aduu khayr kuu yahay qultu athuluthayn ducadayda markaan 3 u qaybiyo 2 ma ka dhigaa salli nebi qaala nabiyu calayhi salaatu wasalaam maa shita intaad doonto ka dhig fain zidta fahuwa khayrun laka haddaad intaa kasii ziyaadisana saasaa kuu khayr badan qultu ajcalu laka salaatii kullaha ducadayda oo dhan adaan kuu yeelayaa bimacnaa waxaan ka dhigayaa salli nebi su-aalba waan iska daynaya sabaa'irka xadiidku yahay ahlucilmiga qaarkoodna waxay idhahdeen duco khaasa buu u jeeday ee maaha macnuu qofku inuu iskaba daayo baryadii ilaahay iyadaa cibaadaha shareecaduna aada u dhiirigelisa oo salliga nebiga inuu ku kaaftoomo maaha cumuuman waxaynu ka qaadanaynaa nebigu inuu dhiirigeliyey in salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam la farabadiyo ma hiya alfaa'ida min waraa'i dalik maxaa laga faa'iidaya rasuulku xadiidka si gaara ugu sheegay qaala idan tukfaa hamaka wayugfaru laka dambak nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi haddaad sidaa yeesho ood salligayga farabadiso ducadaadaba salli nebi aad ka dhigto hamigaagaa lagaaga filaaday macnaa wax allaale waxaad ku hamiyeysaad doonayso diin iyo adduunye waad heli doonta wax allaale wixii ku warwargeliyana ilaahay baa kaaga filaan doona dembigana waa lagu dhaafi doonaa wayukfaru laka dembuk tirmidi baa wariyey alimaam albayhaqi kitaabkiisa shucab liimaanka waa ku saxiixiyey wakadalika alxaafid ibnu xajar xasana hada alxadiid waxasanahu asheikh alalbani marka salliga nabiga calayh salatu wasalaam ogow kad murugo iyo warwar iyo dareento farabadi iska wad tiro go-an male